السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحابت خالقة كحرن دعو channel كسو دواذا مقالي روان ربونا ندين كل وذاقو سدح الريموت أو رمضان كلو سقوتيو waxaan soo gaarnay gabagabadii bishii khayrka iyo barakada badneyd waxaana jeclaystay inaan idinla wadaago 3 arrimood oo bishaan lagu sagootiyo. midka ugu horeeya waa inaan Ilaahay uga mahadcelinaa fursadan uu na siiyay ee bishaan uu na soo gaarsiiyay nabadda ku soonay ee aan gabagabadeedii marayno ayadoo jiraan dad maalmihii uu soonka bilanayay ama uu bilan rabay yacni waqtigoodii uu dhamaaday oo geeriyooday. qaar kale way nala soomeen waxay ku tageen 10kii hore qaar 10kii dambe qaarna 10kan yacni u dambeeya ayaa waqtigooda ku ekaa. haddii uu Ilaahay intaas caafimaad nagu soo gaarsiiyay oo bishii ay 2 maalin naga xigto ama maalin waa inaan Ilaahay uga mahadcelinaa fursadda intaas leeg uu noo ogolaaday inaan ku dhamaysano bishaas oo aan ku cibaadaysanay. dadka intooda badan waxay ku jiraan hilmaan musiibo geedida ka weyn ma jirto. mar haddii nafta laga qabto wax walbo noloshaada ku saabsan halkaas ay ku istaagayaan waxaana ku anfacaya wixii aad horey u soo qabsatay. waqtiga aad hadda haysataa iska dayicin Ilaahayna uga mahadceli fursadan maanta uu ku siiyay ayadoo dad badan ay ka maqan yihiin ayna ka shalaayayaan ay joogaan meel aysan ka soo noqon karin. arrinta labaad ee aan rabo inaan ramadaankan ku sagootino waxay tahay waxaad ka fikirtaa ramadaanka dambe ma ku gaari doontaa caafimaad oo maad soomi doontaa mise waxaad noqon doontaa dadka midka maanta aan joogno ka maqan oo kale. waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo Ilaahay baa og inaan gaarayay in kale waa runta Ilaahay baa og laakiin waa inaad ku talagashaa lacalla haddaad ramadaankaas kala gaari weydo hadda maxaa kuu diyaarsan maxaad maanta wadataa oo yacni sahay kugu filan maxaad isku haleyn kartaa. ilaan meeshaan laguma keenin inaad iska cabto iska cunto iska socoto hadhowna aad iska dhimato. meeshaan waxaa lagu keenay inaad ugu shaqaysato meesha aad u socoto. qofka marka hadduu qaabkaas u fikiro wuxuu ka faa'iidayaa inuu noqdo qof taqi ah qof Ilaahay ka baqdo qof aaminsan inay jirto in la is xisaabin doono. ramadaanka wuu fog yahay tusaale aan soo qaatay laakiin fikraddaas hadday maskaxdaada ku beeranto waxaad noqonaysaa qof subaxii waagi markuu baryo ka fikiro qoraxda ma ii dhici doontaa markay u dhacdana ka fikiro ma ii soo bixi doontaa. waa qof mar walba diyaar ah oo yacni sahaydiisa xirxirtay. arrinka saddexaad ee bishaan aan ku sagootinayno waa in aan hadda go'aan qaadanaa inaana ka leexan doonin waddada aan hadda ku taaganahay. bishaan waa bil cibaado dadka badankooda way isbedeleen oo waxay badiyaan yacni cibaadada. waxaa marka laga rabaa in ramadaanka markuu dhammaado aada ku noqonin meeshii aad ka imaatay ee aad ahaataa sida aad hadda tahay. ogow ramadaanka maada caabudaynin ee Ilaahay baad caabudaysay. ramadaanka wuu tagayaa laakiin Ilaahay ma tagayo. waxyaabaha khayrka ee aad nafta bartay waa in aad halkii kasii wadaa oo uusan dib u dhac kugu imanin. waxaan kusoo gabagabeynayaa waa inaan Ilaahay ka barinaa oo aan mar walba ducaysanaa inuu khaatumada noo wanaajiyo cibaadadana naga aqbalo. markaad yacni cibaado samayso lama ogolo inaad yacni tiraahdaa waan cibaadaystay waan soomay talaajil baan tukaday taraawiixdaan ku daray yacni inaad u dhigataa in lagu aqbalay oo kale. waa inaad ka walbahaartaa oo aad Ilaahay in badan ka baridaa inuu kuu aqbalo. waxaa jira dad aad u fara badan oo soomo oo salaado sadaqa bixiyo laakiin aan waxba looga xisaabinin. aad bay muhiim u tahay inaad baryada yacni ku daba wadaa cibaadada aad samaynayso si uu Ilaahay kuugu aqbalo. Ilaahay waxaa ka baryaynaa inuu acmaasha wanaagsan noo aqbalo oo khayrkana waafajiyo dembiyadeenna iyo kuwa waalidkeennaba noo cafiyo. bishaan bisheeda nabad caafimaad iyo farxad nagu gaarsiiyo kuwa ka faa'iidaysto oo laylatul qadarka haleela rabbi naga yeelo. haddii ay qaarkeen gaari waayaan bishaasna Ilaahay jannatul firdaws uu hoy uga yeelo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.